qaar ka mid ah hogaamiyaasha ismaamulka Meru ayaa waxay dawladda ka codsanayaan in loo sameeyo ceelal biyoodyo si wax looga qabto dhibaatada cunno yarida ee ka jirta countigaasi. Wasiirka beeraha dalka Mithika Linturi ayaa waxa ugu baaqay shacabka countigaasi in ay dhowraan deegaanka isla markaasina ay abuuraan geedaha dhirta. Wasiirka beeraha dalka Mithika Linturi ayaa waxa uu sheegay in geedaha oo la abuuro ay wax ka qaban karto isbeddelka dhanka cimilada. Wasiirka beeraha dalka Mithika Linturi ayaa waxa uu sheegay in shacabka ismaamulka Meru looga baahan yahay in ay horumariyaan wax soo saarka beeraha ee countigaasi. Dhanka kale, xildhibaanka deegaanka baarlamaaneedka waqooyiga Imberere ayaa waxa uu ugu baaqay madaxweynaha dalka in uu la yimaado istiraatiijiyada wax looga qabanayo cunno yarida ka taagan guud ahaanba dalka Kenya.